Muuqaaladii hore aynu kaga soo hadalnay qaabka linear equationta loogu qoro graafka, dhammaantood equationadii aynu kusoo qaadanay waxay u yaaleen qaabkan. Y waxay kula mid tahay mx plus b. Qaabkan waxaa loo yaqaanaa slope intercept, oo mt waxay u taagan tahay slopeka halkay bduna u taagan tahay y interceptiga. Yani halkuu garaafkani ka jarayo y-da waa bda, slopeka inta uu janjeeraana waa mt ama ntayna ugu taagan. Haddaba muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa qaab ka duwan qaabkaas oo ah ax plus by waxay kula mid tahay c. Markaynu doonayno inaynu soo saarno equationtu markay qaabkan u taalo halka ay x ka jarayso, barta y waxaynu ku bedelaynaa 0, dabeedna waxaynu odhanaynaa ax plus b times 0 waxay kula mid tahay c. Intani marka meesha way ka baxaysaa, x ayaa waxay noola mid tahay c. Marka dhinac kasta waxaanu qaybinaynaa baynu u qaybinaynaa. x haddaba halka uu garaafkani ka jaraya waxay noqonaysaa barta a over c, halkaasay noqonaysaa. Mar kale markaynu doonayno inaynu soo saarno halka uu y ka jarayo ama garaafkani halka uu y ka taabto, barta x baynu 0 ku bedelanaa, dabeedna waxaynu odhanaa a times 0 plus by ayaa waxay noola mid tahay c. Intani meesha way ka baxaysaa, markaa by ayaa waxay noola mid tahay c. Halkan b ayaynu u qaybinaynaa, halkan waxaynu u qaybinaynaa b. Marka waxay noola mid tahay c over b. Haddaba labadan equation waynu xasuusnaan doonaa. Yani waa tan iyo tan, x inay noola mid tahay a over c, y-duna ay noola mid tahay c over b. Inta kale aan iska masaxnaa doona. X waxay noola mid tahay c over a, y-duna waxay noola mid tahay b over c over b. c over b. Haddaba equationtan waxayna leedahay 4x plus 2y ayaa waxay noola mid tahay 3. Sidee baan marka garaafka ugu qornaa? Sidee baynu garaafkan ugu qornaa? Intani a bay noogu taagan tahay, 4kani a bay noogu taagan yahay, 2gana b buu u taagan yahay, 3gana c weeyaan. Marka si aynu ugu qorno garaafkan waa inaynu soo saarnaa, waa inagoo isticmaalanaa intan, inagoo isticmaalanaa qaybahan, waa inaynu soo saarnaa qiimayaashaas. x waxay noola mid tahay c over a. Marka c waa tan, waa intan, a-na waa intan, labadaba waynu isku qaybinaa. Haddaba waa 3 over 4. Mar kale x waxay noogu taagan tahay, y-daan idhaahdo waxay noogu taagan tahay c over b. Marka c 3 weeyaan, b-na waa 2. Haddaynu labadan isku qaybino waxay noqonaysaa waa 3 loo qaybiyey 4. 0 baynu u saarnaa, xaggan eber baynu ku daraynaa,
dabeedna 7 baynu u saarinaa 8 iyo 20 waynu kala jarinaa labaa soo haraysa xaggana waa eber waxaynu ku daranaa eber 5 weyaan marka waa 0.75 0.75 ayay intani noola mid tahay intana waxay noola mid tahay 1.5 1.5 ayay intana inoola mid tahay qiimaha intana waa 1.5 haddaba 1.5 iyo 0.75 xariiqan garaafyada xaggay ka dhacaan yani halkana waa 1 halkana waa 2 halkana waa 3 halkana waa 4 halkana waa 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 marka garaafkan xageebay equation tani xageebay ka dhacaysaa yani markaynu doonayno inaynu ku qorno shaxdan halkaynu ku qornaa waynanu marka qiimayaashan mid kasta barta uu yahay aynu calaamadaynaa okay egasta aynu ku horeyno oo qaybtana egasta haddaynu ku horeyno 0.75 weyaan 0.75 marka waxay iska cadinaya 1 ka yar tahay halkana waa 1 1 baynu ka yaraysiinanaa marka halkaasuu noqonaya halkaa calaamadda casina ku qoran tahay ayuu noqonayaa egasku bartaas marka aynu xusuusinu ku laabano egastu intani micni waxay noola mid tahay 0 aan idhaahday 0.75 comma 0 waa barta ay dhacdo intani marka halkaasi waxay la qiimo tahay intan okay wayduna haddaba maxaa halkay dhacdaa waa 1.5 bartay dhacdaa marka waydana waynan iyadana soo saarnaa 1.5 halkan weyaan 1.5 marka wuxuu u dhexeeyaa 1 iyo 2 halkaasina ku qoranaa labadan xariiq marka haddaad isku xidho qaabkaas garaafkani wuxuu noqonayaa qaabkaas haddii aad u isticmaasho qaababkii hore aynu kaga soo shaqaynaynay casharadeenii hore waayo tusaalaha xigaa wuxuuna leeyahay 5x plus 4y ayaa waxay noola mid tahay 2 marka qaabkeenu ugu qornaa garaafka isla egtan waynanu soo saarnaa markaa tikraarada micnihii halka ay qiimo kasta qiimaha egas halka uu garaafkani ka taabto sidoo kale qiimaha y halka uu ka taabto egasta marka tikraarkeeda aynu doonayno inaynu soo saarno waxaynu isticmaalaynaa intanan isticmaalaynaa egas marka waxay noola mid tahay c intana waa a ayay noogu taagan tahay taasina b bay noogu taagan tahay tuuguna c buu u taagan yahay waa a over c marka cdu waa 2 eeduna waa 5 waayo 0 dhahde 2 iyo 5 haddaynu isku qaybano marka waxay noqonaysaa 0 maan u saarana xaggani waa 24 20 dabeedna waan kala jarinaa labadan eber eber marka waa egas waxay noola mid tahay 0.4 waa tikraarka halka uu garaafkani ka taabto egas ama ka taagan aan idhahda xariiqa jiifa xariiqa taaganoo xariiqa jiifa waa egas xariiqa taaganna waa y marka xariiqa jiifa halka uu ka taabanaya garaafkani waa 0.5 mar kale xariiqa taagan halka uu ka taabanayo aynu soo saarno waxay noola mid tahay y waa c over b cdu waa 2 bduna waa 4 cdu waa 2 bduna waxa weyaan 4 waayo marka waxay noola mid tahay haddaynu labada sii qaybino waa 1 over 2 intaasoo noola mid 0.5 okay 1 2 3 4 halkana waa 1 2 3 4 way 0.5 markaynu xariiqa taagan ka hadlayno halka uu ka taabtay garaafkani 0.5 ayaynu tegaynaa 0.5 1 ayay ka yar tahay waxayna noqonaysaa meelahaasay noqonaysaa waayahay sidoo kale xariiqa jiifa 0.4 wuxuu ka yaryahay 1 1na waa halkan marka isaguna wuxuu noqonayaa
meelahaas. Labada barood haddaad isku xidho marka saasuu noqonayaa. Garaafkan marka haddaad u isticmaasho qaababkii hore inooga soo shaqeynaynay wuxuu noqonayaa garaaf noocaas u dhacaya.